فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. waxaan soo wadnay tafsiirkeena suurat albaqara, waxaan soo gaarnay aayadda 243 ayaan soo gaarnay. ilaahay wuxuu leeyahay: alam tara miyaadan ogeen naw maxmedow oo cilmigaaga iyo aqoontaada aysan gaarsiisaneen ama aysan kusoo gaarinba ila aladiina kuwii xaggooda oo kharajuu baxay min diyaarihim guriyaashooda ka baxay walxaal hum ayagoo uluufun ay yihiin kumanyaal, dad fara badan ay yihiin, dhowr kun, xadara almowti geeri carar ay ka cararayaan darteeda ama digtoonaashay ka digtoon yihiin geeri ayay guriyaashooda ay ugu baxeen. faqaala wuxuu ku dhahay lahum ayaga allahu ilaahay wuxuu ku dhahay markii guriyaashooda ay ka carareen: muutuu dhinta, way geeriyoodeen. huma intaas kadib axyaahum ilaahay wuu soo nooleysiiyey oo nafta ayuu kusoo celiyey. in allaha ilaahay laduu fadlin dheeraadsiin mid u saaxiib ah wey cala annaasi dadka dushooda la dheeraadsiiya, walaakina akhara annaas laakiin dadka intooda badanba laa yashkuruuna ma shukrinayaan oo ilaahay uma maxadnaqayaan. waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama iyo diinka difaacaysaan. waclamuu waxaad ogaataan ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala samiicun inuu yahay mid maqlid badan, caliimun oo haddana cilmi badan. man waa kuma daakaas alladii kaasoo yuqridu allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala amaahinaayo qaradan amaah xasanan oo haddana wanaagsan, oo fa yudaacifuhu ilaahay u laablaabayo qardigaas uu bixiyey lahu manka adcaafan laalaabitaan oo kahiiratan oo fara badan. wallahu ilaahayna yaqbidu wuu ciriiriyaa oo wuu yareeyaa, arsaaqda wuu ku yareeyaa ciduu doono, wayabsutu wuu u fidiyaa, wuu u ballaariyaa ciduu doonana. wa ilayhi alla weyne xaggiisa ayaa turjacuuna laidin celinaya. alam tara miyaadan ogeen naw maxmedow ila almala-i madaxyaweyntii xaggooda. mala waxaa la yidhaahdaa ashraafu lqowm. mala haddaa maqasho waa ashraafu lqowm oo dadka kuwa ugu ashraafta oo la ixtiraamo oo la sharfo oo la qiimeeyo ama laga dambeeyo ama madaxda ama maamulka dadkaasa mala loo yaqaana, oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka ahaaday, min bacdi muusa nabillaahi muuse gadaashiisana ku sugnaa, oo nabillaahi muuse markuu dhintay kadib ayay joogeen. id waqti qaaluu ay dhaheen linabiyin nebi oo lahum ayagu u sugnaaday ay ku dhaheen: ibcath lanaa noo soo saar malikan boqor noo soo saar, nuqaatil waan dagaalamaynaa fii sabiilillahi ilaahay jidkiisaan ku dagaalamaynaa. qaala wuxuu dhahay nabiga: hal casaytum ma mudan tihiin in kutiba haddii la waajib yeelo calaykum dushiina alqitaalu dagaalan anlaa tuqaatiluu inaydan dagaalamin. sidoo kale nabillaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligiisa waa tii ay dhaheen: waqaaluu rabbanaa lima katabta calayna alqitaal, sooma lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qariiba. waqaaluu rabbanaa lima katabta, koodii waxay dhaheen jihaadka maana nagu waajib yeel, maan la soo dejiye hadda markii layidhi dagaalama waxay dhaheen lima katabta calayna alqitaal lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qariib. ilahi wuxuu yihi: qul mataacu dunya qaliilu waalaakhiratu khayru liman ittaqaa walaa tudlamuuna fatila aynamaa takunuu yudrikkum lmowt. marka waxaad umalaysaa inay isu dardaarmeen oo qofka markuu fula uu yahay wuxuu leeyahy waxaan maa la sameeyo, markii la sameeyena meeshuu kasii cararaya. falamaa goortii kutiba la waajib yeelay qaala hal casaytum in kutiba calaykum alqitaal. qaaluu waxay dhaheen: wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday oo allaa nuqaatila aanan ku dagaalamaynin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa, walxaal qad ukhrijnaa anagoo nanaga saaray min diyaarinaa guriyaasheen wa abnaa-inaa wiilasheenan la qafaashtay.
فلما قرتي كتب لواجب يلي عليهم دشود القتال دقالا تولوا ويجيسا إلا قليلا إن يروا منهم أي كمداموي والله إلهنا عليم ومد وشبدا بالظالمين كوا قردارا وقال وحوله لهم أيها نبيهم نبي وحكوله إن الله إلهي قد بعث وحصوصا لكم إذنك طالوت ملكا حال ويهي بقر طالوت الإذن صوصاري ون إذن هقامنايا قالوا حيله الناس ذيبا أما قابكيبا يكون وحانا له أسوه أحانا يا الملك بقرطويد علينا كوركين سدور نوع حكومايا والحال نحن أنغو أحق من ناشبدا بالملك بقرطويد منه أسيق حقيس أنغا وكم من ناشبدا ولم يؤت هدن عن لسين سعة واسع نمو من المال حول حقوه تاجر مبلغ دقم وفقير هدن سرنو معمولا يقول قال وحوله نبي إن الله إله سبحانه وتعالى اصطفاه ودورتي عليكم كركين إنه إذن هقامي إله إذن دورتي وزاده إله وزياد أكردي طالوت بسطة في السنان في العلم حق عقونت علم فرق بدن عقون فرق بدن با إلهي وصيه يوم الجسم حق شركنا عقونت markaad hogaamiye tahay hadaadan aqoon lahayn dadka kugu taleecinay kugu caanay kan jaahil kan wax ma yaqaan umada ku caanay xagga jir ahaan markii la yiraahdan umada ku caanay hadaata mid gaaban umada waxay ku leeyahay waxaan gaabnaanta badan hadaata mid iska dheer waxay ku leeyahay waxaan dhirirka badan hadii dhinac u kuusan tahay way kugu caanay hadaa madax u weynta way kugu caanay hadii gacan hadii ma fakanayso markii ilaahay qofku hogaamiye uu ka dhigayo inuu dhimeystira في الجسم حق شركنا وحبا لغا ما شيء كرو دي قف حقوق بدن او عقل بدن او كرتب بدن او عن حنوسنين او مركي قف ورقودا والله ما شاء الله قروح بدن قروح ما لو دميستري الهي علم نوصيه مركي كر iyo hoos baa laga dhisay ilaan cilmiga aqoonta waa hoosta waxa qalbigaaga ku jiro ilaahay kor iyo hoos uu ku hagaajiyay idinkaan hadan waxa idin kaga dhigay يعني إنه إذن هجامي يا بهلي كركاس سومارة ده أباها زوما ما أنت قف أقوام بدن حق الشركة وناكسن إلهي يدور نوصل دير لا وأنا أقوم عن نقله والله لا يؤتي وسي ملكه بقرطويد اسمه يشاء عدو دون والله إلهنا واسع ومد سي بلارنت عليم هذا علم بدن وقال وحودا لهم أيق نبيهم نبي قد حكودا هذا وحيده ويله طالوت إن بقرطوي كركو كنا قضوا هجامي ويهجلادين وحيده مرك إنه إلهي دورته سيدا كو قرنينا إلهي إنه دورته سومني إلهي إذن دورته إلهي إنه دورته سيدا كو قرنينا مرك قالوا جوابي وحالوده وقال وحوده لهم أيق النبي قضوا كودا إن آية ملكه بقرطوي ديسا على مدى ديو أستانته waxaad ku garanaysaa inuu boqor yahay ilaahay idin dooray waxaad ku fahmaysaan ay yatiyakum inuu idin yimaado at-taabuutu sanduuq inuu idin la yimaado waa sanduuq ay garanayeen oo nabi Muuse ugu tagay laakiin laga xoogay dadkii kala dhacay baa ka qaatay fiihi waxa dhaxdiisa sanduuqa sakiinatun xasilooni oo min rabbikum rabbigiina xaqiisa ka ahaaday iyo wabaqiyatun iyo hara iyo athar oo mimma ki kamida taraka uu ka tagay aalu Muusa nabi Muuse ehelkiisa iyo wa aalu Haaruun iyo Haaruun ehelkiisa tahmilu xaalay xambaarsan tahay sanduuqaas al malaa'ikatu malaa'igt inna fi dhalika kaas dhaxdiis waxa ahaaday la aayatan astaan lakum idinka idin ahaaday in kuntum hadatihin mu'miniina kuwa xaqqa rumaysan markii طالوت إلهي وصدري نبي بقر نمدس لغو قنعيه أستانتي يو على مدينة لغو قنعيه أو قلاده وحا حاري مركة إن جهاد الدقال إن لقلصوما إلا وحي دهم بقر نوص وصار أو محاضرة إلهي جيتك سانكون دقالانو دقال كسعوتي يو طالوت عيدا ماذا لسعوتي اسكو جنبي أحايا نبي وحا لسعوتي مركة سدح بقل يو دور يو طبان طالوت markii koowaad oo baxay 80 baa la socotay laakiin dagaalka waxa la gali doona 300 waa la kala reebaya
فلما قرتي مركب فصل وصعمي ولا تجي طالوت بالجنود إذا ما ذي مركب وكحيستي وسديتك كنا أيا قال وحكوداي واستاجيي هذا البؤجي قال وحكوداي إن الله إله سبحانه وتعالى مبتليكم ويدين امتحامايا انت دغالك aan la gaarin wadada aan socono waa la isku imtixaamaya maxaa la isku imtixaamaya binaharin wabi inna allaha ilaahi mubtaliikum idin imtixaamaya binaharin wabi dadkii way socdeen oon baa qabtay hor oon xaraad tirad badan markuu qabtay ilaahi wabi baa hortooda ka soo saaraya wabigaas lagu imtixaamaya inta ku dhacdo imtixaanka waa la celinaya inta baastana dagaalka sii aadayn wuxuu yiri marka faman qofka shariba caba minhu wabiga xaqiis qofkii ka caba oo ka dhirga falaysa minni ay min atba'i imra'a dadka iraaca kamid ma aha waman lam yat'amhu qofkii aan quudinin oo aan ka cabin wabigana fa innahu minni anigu iga mid yahay anigu iraaca dagaalku iraaca illa qof mooye irtarafa darsaday غرفة حال درسشو حال مر إن ساء درسته أم باقوها بس لما أقول إن أفك أوراري أسوأ كدر تبيها لما أقول بيدي قعنتيسا مياها وبيجا يا الله تجي فشربوا وكدر جنب منه وبيجا حجز إلا قليل إن يرموه سديتك يكون ويقبتين بيها سب في أم بيعوين إلا إن يرى صهرت أنت يا صهرتي وحارقوت المامي أفركم سديتن كون هدي أهايين أفركم بس أعلم أنت كالوي عبتي وتضواتن كون سمع تضواتي لحكم باعتي إلا قليلا إلهي وحكوت المام إن ير أو منه أي كمدا وي هاري مركب هاري تضواتي لحكم اسكتشوغ امتحان واتكون عليهم أفركم وثيقاتي فلما قلت هدنا جاوز وجود بيت طالوت هو وبيجي هو أسيغي والذين كوا آمنوا حق الرمي أو معه لجرين كيساها هدنا أفركنا يوسيك حيستي وبيجي والغسي قد بيسوما وبيجي مركي كقد بين أي وحي أركي دونان جالود يو عيد مديس هدنا قلا هاري دون ليه دون دانا جالود مصعنه نيو وكاليغا أما عندي وكراعيسا كعيسو قالوا حيدهن لا طاقة وح أبود لنا أنجا اليوم ما تنوم سجنان طالوده مش أنود وميل بلايو أود منه أنا مقام أو بجالوت بقتال جالوت أن كل الدجالني وجنوده حيد مديسة ما أودنا قال الله قال الذين كلوا حيدهم وسيدي نبي الله موسى هراء يقولهم اذهب أنت فربك فقاتلا إنها هنا قاعدون مركل قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم مركل قلنا وحيدا أنا ماشي المصون هذه ربي أرسل دجال ما يقوله وطبتي ورونا يجي قال الذين كلوا وحيدا يظنون يقيننا أوهوي أنهم أيجا ملاقوا الله إلهي إني لكل مايا أيا وحيدا كم بدنا من فئة قراء أما كوحة أو قليلة آذير غلبت أنت كرئيسي فئة كوحة أو كثيرة فربضا بإذن الله إلهي إذن كسي أقول رئيسي مركي استاغان قولدك لا إلابتين قولير أو حيتي ورهين دي سوى مبادنو قولير أنت أي كرئيسي قولبضا إلهي إذن كيس سوى مبادنو ها نقلي دقالك عنقلنوي واسدح دي بقول وصوى حرتوي والله إلهي مع الصابرين كو الصبر لجرين كو ضيويهاي ولما قورتي مركب برزو أي أبن بحين إذا مدي با سمو غضي قلا هرتي سدح بقول ودا جالون واقوى مالي صور فليستي ولما قورتي برزو أي أبن بحين وأي سمو غضين إذا مدي طالوت قوتي لجالوت جالوت يو جنود إذا مدي اسمرك يا أركان أي قالوا حدهن قال المؤمنين تو جالوت قوتي طالوت قوتي وحدهن ربنا ربنا أفرغ شق علينا دشنا صبرا دلقات إله صدح بخور باناي قالوا ذا ويترى بدينهين إن أتكيسنا أو دلقادنا أو صبرنا إله نوافجكو وثبت إله سوق أقدامنا قومدهن لوجهنا إله دلك كسو يعني إن أنا عرارين وي إله حنا عرارسين فلينما يو عبس قلبنا كسر وانصرنا إله نو هيلي
على القوم قوم كدشود النوغيه الكافرين وقالوا دقالك اي قالين ويدقالمين فهزموه ويجبيين هم يعني طالوت كي معلج جالوت إذن من سوال الجبيين بإذن الله إلهي إذن كيسين كجبيين وقتل وود لي داود نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وود لي جالوت بقرك جالوت أيود لي وآتاه إلهي وحوسيه نبي الله داود الملك الله إلهي الملك بقرتوي والحكمة والنبي نما وعلمه إلهي وحو بري نبي الله داود مما يشاء وحو دون أيوبري أما أورو ولولا دفع الله إلهي ريبتيس يعلنتيس هديس جير لهين الناس أو علنا يددك بعضهم قاركول ببعض قارك كانوا علنا هديس جير لهين لفسدت الأرض دلك وفسهاد لها ولكن الله سيعة إلهي ذو فضل ومد ديرات سين إحسان سين أصاحبها وي على العالمين أنك الدشوه تلك تاس لقصو الشيكي آيات الله وإلهي آياته سوي نتلوان حالا أخرين ها آياتها عليك أذيك كركا بنو محمد بالحق سي عد أما سي حقه يعني قوة أخرين أما بالحق حاليهم قوة حقه آياتها وإنك أذينا لمن المرسلين قوة للدريات كم التهي آياتا وحيت الماميسة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي النمدي سنة سحت هايو بين سنهين واي إلهي وحير تلك تاس لغسو الشيكي قصة لغسو الشيكي آيات الله وإلهي آياته سؤال نتلوه عليك أذيك قوة حيونين قوة آخرين sababtan waxay tahay qissa haday hore u dhacday ama qissa haday dhacdo qofkan inuu ogaado laba siyaabood buu ku ogaan karaa qissada markay dhacaysay inaad goobjoog ahayd aad xaadir ahayd ama qissadan qof og oo yaqaano inuu ku waramay cidii doonta ahaato marka qissadan sidaan u dhacayso nabiga iyo dadkii la joogayba maysan joogin xilligaas cid oo taqaano nabiga ugu warami karto oo dadkiisa ma lahan أسيجنا موسى جوجل يا كلا ورمكر والله سبحانه وتعالى مركن نتلوها عليك أن قوة آخرين أن قوة وحيونين وإنك هذه الصومال لمن المرسلين قوة للدريات كم التعاي ده كان يقول ساحر باتاي مجنون باتاي كاهنة فلفلوة تاي كتاب قبلوة تاي ولي عاي متهده هذه واحد تاي قوة للدريات رسوش هراي لور دري مت كم ده آيات هوي